maanta theme-kiisu wuxuu ahaa waxa la yidhaahdo dialogue diplomacy iyo diversity ama wada xaajood diblomaasiyo ku dhisan iyo ogolaansho in dunidu ay ka kooban tahay dhinacyo badan oo aysan hal dhinac ahayn arrimaha culayska la saaraya waxaa ka mida nabadgelyada waxaa ka mida nabadda yacni amniga ama waxaa loo yaqaano security-ga peace ama nabadda iyo dhaqaalaha economic development arrimahaas ayaa ugu waaweynaa oo culayska lagu saarayay sidaan kuu sheegay imaanshaha ra-iisul wasaaraha ee qatar laba weji bay lahayd qayb waa qayb ahayd martiqaad rasmi ah oo ka helay madaxda dalka kan oo ku arkay isaga iyo wafdiga la socday ay ku arkeen ra-iisul wasaaraha dalka kan oo qadar rasmi ah uu sameeyey oo heshiisyo lagu kala saxiixday oo laga sheekaystay sidii xiriirka Soomaaliya iyo Qatar loo sii xoojin lahaa maanta maxaa la yiraahdaa Doha Forum oo maanta bilowday isagu muhiimad gaar ah ayuu Soomaaliya u leeyahay waxaa ka soo qayb galaya dalal badan oo dunida ka mid ah oo ra-iisul wasaaruhu uu saan idiin sheegay qaarkood la kulmayo qaarna uu la kulmay uuna kala wada hadlayo sii xoojinta xiriirka waxay kaloo tahay fagaare isugu yimaadaan madaxda siyaasadeed adduunka kuwa dhaqaalaha kuwa fekerka kuwa dejiya siyaasadaha adduunka ama jamciyadda qurumaha ka ha noqdeen ama kambaniyo wadan ha noqdeen waxaa looga hadlayaa sidii dunida amnigeeda iyo nabadgelyadeeda iyo horumarka dhaqaale looga wada xaajoon lahaa marka Soomaaliya inay goobjoog ka ahaato qayb ka ahaato arrimahaas waxay u tahay fursad waxay kaloo u tahay qirid maaragtay qadarinta loo hayo Soomaaliya sidaad ka waraysaan marka horeeto wafdiga Soomaalida ra-iisul wasaaruhu madaxda ka yahay waxay u yimaadeen dalka Qatar booqasho rasmi ah booqashadii rasmiga ahayd waxay dhacday maalintii bisha ay 13 ahayd waa midii looga wada hadlay iskaashiga labada dal sidii loo xoojin lahaa Soomaaliya Qatar waayadii lagu kala saxiixday heshiisyo dhowr ah marka qaybtii hore ee booqashadu taas ay ahayd maanta ayaa waxaa bilowday meel la yiraahdo fagaaraha Doha ama Doha Forum oo 18 sano hadda soo socday oo laga martiqaaday madax badan oo dalalka adduunka ka mid ah oo maanta ay ka hadleen boqorka maxaa la yiraahdaa amiirka Qatar madaxweynaha dalka la yiraahdo Ecuador gabadha madaxda ka ah maxaa la yiraahdaa jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa golihiisa ama General Assembly-ga loo yaqaano golihiisa guud waxaa kaloo ka mid ahaa dadkii maanta meeshaas ka hadlay ra-iisul wasaaraheena oo maaragtay runtii hadalkii uu meesha ka jeediyey panel oo ka mid ah oo ahaa mid aad loo jeclaystay oo ku helay sacab xooggan una kaga hadlay Soomaaliya iyo kaalinta ay kaga jirto geeska Afrika iyo mowqifka istiraatiijiga oo ay adduunka ku jirto uga jirto iyo xiriirka soo xoogsanaya ee dalalka dariska ay Soomaaliya la leedahay iyo adduunka